إنا لله وإنا إليه راجعون وحمانت مقالة برعاية حرونتا gobolka Togdheer aas qaran loogu sameeyay marxuum Axmed Siciid Bootaan oo shil gaari oo ka dhacay wadada Burco iyo Ceerigaabo u dhaxaysa ku geeriyooday waxaana aaskaasi qaran ka soo qayb galay xubno kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland wasiir dowlihii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland iyo dadweyne tiro badan waxaana mas'uuliyiintaas iyo dadweynahaasi tacsi u direen awlaadii iyo asxaabtii uu marxuum Axmed Siciid Bootaan ifka kaga tagay ko aasinay oo aaskisi aanu joognaa mujaahid Axmed Siciid Bootaan xasan mikrofon oo aanu muddo badan nolol badan soo wada qaadanay dugsi hoose ilaa dugsi sare xilliyadii aanu dhalinyarada ahayn xilliyadii dambana isku ururkii asna aanu ka mid noqonay markii dambana uu dibadaha u diga rogtay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo aaskaan joogno anigu maanta ninka saaxiib baan ahay Axmed Siciid Bootaan hadal badan doonima inaan ka hadlo waayo waan ooyay runta marka dooraysid waayo dhulka aad bar saaxiib ahayn marka ahalkiisii iyo tolkiiba waxaan tacsiyad bar wada dirayaan kullu nafsun daaqatul mawt waxaan maanta joognaa aaskii Axmed Siciid Bootaan ilaahay ha naxariisto Axmed Siciid Bootaan wuxuu ahaa deenin ragga runtii hormuudka ah ku jiray wuxuu kaloo ahaa dadka samafalka ka waday iyo horumarka dalka ee dibadda uga yimi annagu waxaanu ku wada jiray guddi iyo wadada si gaar aanu dee gruub u ahayn wakhtigiisii ayaa dee ilaahay oofsaday alaa dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadda islaamkaaba ilaahay innagana samiriyo imaan dhammaan haynaga siiyo awilsanna ilaahay baynu u weydiinaynaa ehelkii ku tiirsanaa noloshiisa ee ay nolosha u ahayd iyagana awilsan baynu ilaahay u weydiinaynaa dadka naxariis badan buu ahaa nin aad iyo aad u qalbi furan uu ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun raggii dhalinyarada ahaa ee dalka Somaliland waqtigii isagoo yar naftiisa soo horeyna uu ahaa raggii ka soo qayb qaatay ka mid ahaa raaji'uun marxuum Axmed Siciid Bootaan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo isaga iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo intii uu kaga tagay adduunyada isagana waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay marxuumka jannadii ka waraabiyo dambigiisana dhaafo ehelkii dhammaan in ilaahay samiriyo imaan ka siibaanu ilaahay uga baryaynaa duusa ka waraabiyo ilaahay qabriga inuu waasiciyo jannatul firdawsna ilaahay inuu geeyo ka waraabiyo jannatul a'laa dadkii ehelkiina samiriyo imaan ka siiyay dhamaantayba ilaahay wuxuu uga baryaynaa inuu ilaahay naxariis janna ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtiina samiriyo imaan ka siiyo Axmed Siciid ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu qabriga u waasiciyo su'aashana uu fududeeyo horta aniga Axmed wuxuu si gaar ah baan uga naxsanahay laana 1 year baan meel wada nooleen waxa shakhsiyad aan qiyaasi karin waxa qof tamaruciisa iyo dadnimadiisa iyo ummadda sidoo ula dhaqmayo oo dhan aan la qiyaasi karin wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah ilaahay subhanahu wa ta'ala ha naxariisto Axmed Siciid Bootaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Axmed Siciid ilaahay ha naxariisto ehelidii iyo qaraabadiina samiriye baan ka siiyo Axmed wuxuu ahaa mas'uul wax badan uga tanaasulay dantiisa qarannimada marka hore waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay sakaraadkii uu dhaafay su'aalaha ha u fududeeyo qabriga ilaahay marka dambena jannadiisa firdawsaha geeyo halkan waxaan taasi tiiraanyaa looga dirayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay Axmed Siciid Bootaan isagana waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno ugu deeqo waxaad ka muuqataa sida looga soo qayb galay aaskiisa waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu qabriga uu nuuriyo oo kitaabka uu midigta ugu dhiibo oo ilaahay jannatul firdawsa marxuum Axmed Siciid Bootaan ayaa ka mid ahaa siyaasiyiintii golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo sidoo kale qurba joogta reer Somaliland ee waddanka Ingiriiska Saad Afjar Xorriyad TV Burco.